qofkii xaysan ilaahay dartii aan ku daweynayaa. sidii caadaday noo ahayd waa goor habeen ah waa waddankeeni qaaliga ahaa dadkoo dhammina way wada mashquulsan yihiin waxayna ku mashquulsan yihiin shaqooyinkooda khaaska ah qof walbaana mihnad khaasa ayuu leeyahay sidii uu wax u heli lahaa uuna u kasban lahaa irsiq xalaala yaman waxay caan ku tahay khaasna u ah inay yihiin dad geesiyiin ah oo qalbi wanaagsan aadna u sharaf badan waana shacab jecel qosolka waqtiguna markuu xilli dambe noqdo qof walba uu iska rawaxaa saacaddu imika waa 12 iyo 5 daqiiqo ee habeenimo waxaa jirta sheeko aan weli dhammaan bal aan ogaano tafaasiisheeda. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعانا محمد أيو محمد عبد الرزاق هذيك هذا لمي عبد الرزاق ما شاء الله لم يأتي محمد ولالتين إمسا كلد ولالتين يقول لك شوغا وإمسا مردمان صدحي طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني إمسا ولا إمسا قبلانا شنويل يسيدد هبلود يسيدد هبلود لما أنتين بقى ما شاء الله وانقرتي ما حد قبنا صادقو لا يوم بريا لكن حلو وحيد الدنبه وايو maxaad maalintii u iibin weyday amba duurkii oo kale anuu xanuun waxaan qabaa alceeda sidee micnaha yani ma markaad adcad u soo baxdo xanuunsanaysaa waan dawaqayaa markaad soo baxdo duurka oo kale adcaduna yani kulushahay miyaad dawaqaysaa ha waan dawaqaa waana mataqaa waad matagtaa markii falaaraha adcadu ay ku dhacaan waxaa ku dhaca wareer oo dawaqaa kadibna uma tagaa waa sax saas maaha ilaahay ku caafiyo maxamedow biidnillaah waad ladnaan doontaa adigu insha allah waan gartay maxamedow adigu hadda ilaahay waxaad u baryaysaa inaad naftaada masruufto mise qoyska dhan baad masruuftaa qoyskaygoo dhan ma 13 qof maasha allah adiga lamiya unbaa soo baxa waan gartay maxamedow kiiska dhan oo beedka imsaad kusoo iibsataana 1500 imsaan lagaa siistaana 3000 micnaha faa'iido waxaad u heshaa 1500 maalinkii oo dhan ma kiiskaasoo keliya iibisaana bidhkaasana iibiyaa waayo maxaad iibsan weydanaa 2 kiis 3 kiis dhabarkay xanuunaya ma qaadi karo يعني قربك يعني دبرك ayaa ku xanuuna yani adigu yani intan imika waxaad ku qaataa dhabarkaaga miyaa masaafo dheerna waad socotaa waxaan u baahnaa kaariyoon saan ugu shaqaysto yani maxamedow waxaad ilahaysaa waxaad adigu tamaniyeyso ood ku riyooto oo ah gaari gacan علشان saad wax ugu iibiso ood ilaahayna ku barido maxamedow haddii ilaahay ku sakhiro ku siiyo gaari dalladiisana wataa soo garamaysid ma awoodaa markaa inaad yani aad iibiso duurkii oo kale duurkii casarkii habeenkiina kumaad raagteen ood dhaqsad iskaga ruuxi lahayd oonad seexan lahayd oo iska nasan lahayd waad garatay soo maaha waan garanayaa maxamed wax ma dhigataana fasalkii baa tahayna maxamed bal ii sheeg aduma faashil baa tahay mise fariid run ii sheeg anuu fariid baana runtaan kuu sheegayaa runtaaba fariid baa tahay hadda waxaan eegnaa maxamed eeg iminka bal ii sheeg imsaa ku hadhay beedka 7 2 2 3 4 5 6 ولح كلية وتضبع تاس وتضبع وحبك خلدم مايان خلاص وتضبع حب محمدو سيدا وقتسان كو راجين والله يا بدديني كوي مدان كايب سدان صح انيق ايا كايب سنيا حبدي مسادق سينسا بقر ريال وصح وانقرتي هدو ايمكا محمدو حبدي هدو وحن كايب سنيا 1 ريال بس لكن سو فرحين waxaan kaaga iibsanay eeg lamiya qosashay kuriyal ayaan kaaga iibsanay laakiin shart ani adigu challenge ayaan gelinaa maxamed anigi adigu beed ayaan cunaynaa kii hor dhameeya beedka ayaa helaya abaalmarinta diyaar ma tahay haa maya diyaar baan markaas dhalinyaradu dhan markhaati ka wadayihiin soo saas maaha khalaas waa markhaati kii hor dhameeya isaga ayaa guulaysanaya soo saas maaha lamiya yaa guulaysanaya aniga amba isaga aniga guulaysanaya hubde yaad dhiirigelinaysaa ma aniga mise maxamed aniga dheh aniga ayaan bilaawna maxamedow kii qolofta ka hor qaada ayaa cunitaan ka hor bilaabaya 1 2 3 maxamed waa degdegaya ma sha Allah anaa ka hor fiiqaya iqaba mikrofoonka anaa ka guulaysanaya adeer anaa ka guulaysanaya maxamed waad arki doontaa isaga ka guulaysanaya waan kari waayay saa loo diro maxamedow ma qoloftan ku cunaa dhammaanteedba kun هيا نرجع كين جولستا أنا كار رخصة أنا كار هنايا يعني محمد يوم كواحد لا ذاي إنها تقبل دسوسة معها وتأركض دونتا محمدو وأركض دونتا مرحلة دي كواد مرة هنا ولي ما أنا لمسترين محمد نتامبو بلاوي أنا مع الغرفة تنقعني محمد هذا
وبيقول لميبا هدي يقول لمي إيش قبل ويستاهلها maxamed baa kaa badiyey hadda maxamed qabo balintan waa 7,000 oo riyaal sidaan kugu ballan qaaday haddii aad iga badiso beedkan ku xisaabinay waa 7,000 tani waa qiimihii beedka tanna waa 50,000 oo riyaal u sacbiya oo dhaha maxamed u istaahilaa waan gartay maxamedow su'aal ayaan ku weydiinayaa haddii alla insha allah uu kuu furo ma garatay ood hesho dhaqaale ma waxaad iibsan yacni kiisas badan oo beeda waan ilaahay horta aan ku weydiiye aabbaha ma noolya ilaahay caafimaad ha siiyo insha allah miyuu shaqeeyaa wax camala muu hayaa aabbaha wuu jaban yahay mana shaqayn karayo aabbaha yacni wuu jaban yahay ilaahay caafiyo insha allah biidni illah waanu caafimaadi doonaa nabad ayaan u rajaynaynaa biidni illah waanu ladnaan doonaa maxamed saad u barateenba markuu cadceedda u soo baxo waayo xanuun ayuu ka qaadaa amba dadku ay hore wax uga iibsan waayeen uu suuqa ku raago sida 10 barka ilaa 11 soo saas maaha waayo shucaaca cadceedda ayaa wax yeeshay isaga marka cadceeddu soo baxdo waxaa ku dhaca wareer isaga sankana dhiig ayaa ka yimaada waa xanuun macruuf ah oo laga yaabaa idinku qaarkiinba inaad garanaysaan amba dadka ku takhasusay biidni illah maxamedow insha allah waad ladnaan doontaa insha allah maxamedow eeg haddaba anigu waan ku jecelahay waxaan ahay walaalkiina weyn soo saas maaha laakiin lagama yaabo inaad guuldaraysto waa inaad challenge labaad ila gashaa inaan kaa guulaysto doonaysa maya maaha iga guulaysan maysid hataa aniga maya oo challenge-gayga aan ku guulaysto ma garatay waxaad ii iibinaysaa kiis beeda oo dhammaystiran weliba jaaysadada kooda xigama geli laakiin aniga waxaad ii iibinaysaa kiis beeda haddii laakiin adood iga guulaysato abaalmarin kalaad helaysaa ila gelaysaa challenge-ga mise waad iska tegaysaa waan gelayaa waad ila gelaysaa challenge-ga yani diyaar baad tahay challenge-ga diyaar ayaad tahay challenge-ga su-aasha labaad haddaba maxamedow su-aashu waxay leedahay su-aal walba way adag tahay su-aal adag miyaan ku weydiiyey mise waan kaa daaya sidaad doontid diyaar baan ahay yani siday doontaba noqto su-aashu diyaar baa tahay diyaar su-aashu haddaba maxamedow waa imisa salaadaha faralku waa 5 shanta faralka maxay yihiinaa subaxdii duhurkii casarkii iyo maqribka iyo cishaayiga ma tukataa maxamedow wuxuu istaahilaa sacab maxamed ha loo sacbiyo maxamedow intaan jaysadaada labaad ku siin adigu miyaad barida dadka adiga kaa iibsanaya mise ilaahay baad baridaa ilaahay waan baryaa ilaahayaad baridaa xadhigga ilaahayna waad haysataa haddaba maxamedow biidni illaah ad waxbaad dhigataa waana dhammaysataa waxbarashada maxaad ugu tiri awel safkii baan ahay saddexaad waad dhammaysanaysaa insha allah waanaad geli doontaa jaamacadda insha allah isla wakhtigaana ilaahay ayaad bari doontaa biidni illaah adigu waxaad tiri riyadeedu waa gaari gacan waan gartay maxamedow gaariga haddii aan kuu soo diyaarino oo wax fiican ay idiin soo saarto ma laga yaabaa waalidkaa inuu ku soo raaco ay kula shaqaystaan u awoodaa micnaha haddaba biidni illaah allah waaxidka axadka biidni illaah gaariga waad helaysaa maxamedow iyadoo weliba dalladeeda wadataa biidni illaah waxaana ka wada shaqayn doonaa adiga aabbaha ilaahay baanad ku baryi doontaan markaad dhammaysato waxbarashadaada waxaanad ilaalin doontaa waxbarashadaada ha yidhi anigu waan ilaashanayaa waxbarashadayda insha allah markaad weynaato maxamedow maxaad noqonaysaana tiktor waxaad noqonaysaa dhakhtar waayana saasaan doonayaa yacni dadka ay daweynaysaa qofka raba in la daweeyo aan haysan yacni lacag amba qarash aan wadan maxaad ku samayn lahaydna qofkii aan haysan ilaahay dartii ayaan ku daweynayaa allah saasaan yeelayaa hadalka ka soo baxaya ilmahan yar waa hadal qof weyn oo kale ilmahan yari qof kastoo cibaaro u yahay oo ilaahay ku xidhan wuxuu tusaale u yahay odayaasha dhallinyarada iyo cid walba ilaahay ayuu baryayaa jididkiisa ayuu shaqaysanayaa isagoon cidna gacanta u taagin iminka ma aragtay yani waan kula warwareegay yani ma garanaysaa sababta waan garanayaa ii sheeg waxayna inay walaaqda doonaysaa yani abaalmarinta aan kaa mermeriyo waan ku siinaya jaysada labaad maxamedow mahadsanid amiinow sacab ayuu istaahilaa maxamed tani waa 50,000 waa 50,000 oo riyaal oo kale ilaahay wax khayr qabaa idin siiyo insha allah biidni illaah waad arki doonaa maalmaha ka mid a idinkoo noqday tijaaro waaweyn markaad gaadhaan marxaladda jaamacadda waad dhammaysaan dhaha insha allah ilaahna ku caafiyo maxamedow insha allah haddaba maxamed iyo lamiya saad aragteenba hami weyn ayay leeyihiin riyo weyn ayaa ku duugan mid walbana weynma yar yahay mid kastaana wuxuu u nool yahay sidii uu nolol u heli lahaa qoyskiisana u caawin lahaa alxamdulilaah allah subxaana wa tacaala daa'iman ayaa siiya hamiga weyn dadka wan wanaagsan waa fariin ku socota qof kaste oo ilaahay adduun siiyey oo taajira shakhsi kaste oo ladan oo ilaahay siiyey irsi badan kuna manaystay si kaste haataba marka dambe waa geeriun
qofka dunidan wax kasbada marka dambe waa geeriyoonaya hoos u eega dadka masaakiinta dadka wax u baahan ee jaarkaaga aan cidna gacanta u taagan oo laga yaaba maanta inaan helin waxay cunaan sidaa ogeeda ilaawina insha Allah biidnillah hadda waxaan raacaynaa maxamed iyo lamiya waxaan gaarsiinaynaa gurigoogii biidnillah waana nasan doonaan maanta waxaan soo arki doonaa aabahood iyo waxaan soo ogaan doonaa xaalkooga insha Allah nala socda insha Allah idinkuna